بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن صاحبيال ميل كستو aad iga daawanaysaan hakaan lamaanahaaga ayaa ciwaan ugu ah barnaamijka aan soo gudbin doono kantaroolku macnayaal badan buu yeelan karaa ma aha macnaheedu inaad qofka amrayso laakiin waxyaabaha qaar oo aadan adigu ogeyn ayaa jira oo qofkana dhibsanayo una arkay inaad kantarool ku hayso sida daraadid waxaan rabaa si lamaanayaal badan ay uga baxsadaan inay burburaan ama ay uga badbaadaan haddii muuqaalkani soo gaaro waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo insha Allah tacaala موضوع يرو كوبانا اسليها إن شاء الله تعالى وإذا أنفعي دونا إن شاء الله مركا موضوع منتوس ودحقيلي دونا بعلها وقف كل بسنكرو مركا كواد وحيتهاي حاجات كتمي محاد قبانيسي ياد لتشوكتي محاد سيدا نصميسي محاد إلها اللي ويدي محاد سوركي كوس هرنا وبدشي محاد iska ilaali inaad su'aalahan iyo kuwa ka badan ba aad ku soo celceliso lamaanahaaga sababtoo ah uu dhibsanaya xataa haddii uu ku jecel yahay waxay keenaysaa inaad kala fogaataan oo uu kugu dhibsado su'aalaha aadka u badan ee noocan ah ogow qof kasta oo bini aadam ah isaga ayaa yaqaan waxa uu wanaagsan iyo waxa uu xun isaga ayaa yaqaan waxa uu sameeynayo ee wanaagsan iyo dariiqa uu raacayo ee xun sidaa darteed ha isku dayin inaad adigu ku khasabto waxa aad jeceshahay ama waxa aad rabto in lagu sameeyo sababtoo ah qofkani haddii aad isku daydo waxa aad jeceshahay inaad mar kasta uu ku sameeyo waxaad u ekaanaysaa qof raba inuu kantaroolo noloshiisa oo xadido taasina waxay keenaysaa inaad kala fogaataan si aad uga dhowrsanaataan ama aad uga fogaataan kala fogaanshaha noocaas iska ilaali su'aalaha noocan ah inaad ku soo celceliso ama aad ku kantaroosho lamaanahaaga ودا حتى سؤال المرمركة قار وحيابها nolol maalmeedkiisa ku saabsan ama isaga gaarka u ah kaliya adigu waxaad waqti ku bixisaa inaad samayso wax kasta oo wanaagsan sidoo kale inaad u dulqaadato xataa haddii uu mashquul badan yahay taas ayaana lagu soo jiitaa qalbiga qofka ku jecel inaad markasta ogaato waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu jecel yahay waxa kaaga wanaagsan inaad adigu dulqaad samayso oo aad waqti siiso qofkani uu xataa isagu kuugu sheego waxa uu maanta soo qabtay laakiin haddaad isku daydo inaad xataa ogaato noloshiisa gaarka ah waa run oo waa lamaanahaagii ama waa xaaskaagii ama waa ninkaagii laakiin waxyaabaha qaar ayaa keeni kara inuu qofkani uu kaa fogaado ama uu u arko inaad noloshiisa kantarooleysid sida aan kor ku soo xusnay oo kale sidaa darteed u daa noloshiisa gaarka ah iyo nolol maalmeedkiisa gaarka ah iyo haddii uu shaqaynayo shaqadiisa gaarka ah taas ayaa qalbiga qofka lagu soo jiitaa xataa laga yaabaa inuu isagu markaa kuu sheego oo ku dhaw waxaasaan soo sameeyey iyo waxaasaan soo qabtay iyo waxaasaan qaban doonaa haddii ay noqoto inaad su'aalayso ama aad weydiinayso waxa uu u baahan yahay adigoo ka horraysiinaya erayo macaan isku day inaad si psychology ah ama si cilmi nafsiyan ah aad u weydiiso qofka laakiin adigoo xanaaqsan ama wajigaagu uu bedelan yahay haddii aad qofkan aad su'aalo adag weydiiso adigoo tuhun kugu jiro ama uu kugu jiro maseer aad u fara badan waxay noqon kartaa inaad qofkan ku kala fogaataan isaguna uu ku dhibsado ha ku badin su'aalaha shakhsiga ah oo ha ku soo celcelin ha ku khasbin inuu mar kasta kuu sheego wax kasta uu qabanayo wax kasta uu samaynayo meel kasta uu aadayo maxaa yeelay waxba kuma soo kordhinayso adiga haddii uu ku dhaho meel baan aadayaa ha la soo boodin oo ha la soo degdegin su'aalaha ay ka mid yihiin maxay tahay meeshu yaa imanaya maxaad ka doonaysaa yaad kula balansan tahay iska dhaaf meelahaas oo kale kamaan heli waxaa jira qofka bini aadamka ahi jadwal uu leeyahay oo nolol maalmeedkiisa ku saabsan ballamo uu dad la leeyahay shaqooyin uu aadayo waxyaabo noocaas sidaa darteed ha isku dayin inaad mar kasta aad ku hor istaagto wax kasta uu qabanayo haddii aan ahayn wax tusaale ahaan haddii uu qofkaasi rabo inuu wax un qabto oo aad og tahay waxan inaynan wanaagsanayn si degan ugu sheego waxaad tidhaahdaa waxani wax qurux badan ma aha ee iska dhaaf laakiin marka uu kuu sheego oo ku dhaho meeshaasaan aadaya ama waxaasan qabanaya ha la soo boodin oo ha la soo degdegin su'aalaha ay ka mid yihiin
maxay tahay meeshu maxaad ka doonaysaa yaad kula balansan tahay iska dhaaf anigu kamaan helin iyo wixii la mid mid ogsoonow lamaane kasta oo dunida ku nool isla markaana isdoortay sababta ay isku doorteen ma aha inay iskantaroolaan waa in ay mustaqbal fog ku wada noolaadaan iskuma dooran in ay noloshooda gaarka ay isu sheegaan ee waxay isu doorteen 10 sano 20 sano iyo wixii la mid ah ama ka sii badan inay ku noolaadaan farxad iyaga iyo ubadkooda intan yar ujeedkan yaran ka leeyahay waxay tahay lamaanahaaga markii aad isguursanayseen ama aad isjeclaydeen oo xiriirku idinka dhaxeeyay isku maydin dooran inaad noloshiina wax kasta oo ka mid ah aad isku ogaataan ee waxaad isku doorateen jacayl iyo kalsooni haddii ay noqoto inaad ku soo celceliso su'aalaha noocan ah waxay ka dhigan tahay taas macnaheeduna waxay tahay qofkan kalsoonidii aad ku qabtay way yar tahay sababtoo ah aniga xaaskayga haddaan ka shakisanahay meesha ay aadayso iyo waxa ay qabanayso kalsoonida aan ku qabaa 20% xataa way ka hooseysaa laakiin haddii aan anigu ku kalsoonahay xaaskayga ogahayna in aanay samaynayn wax xun haddii aan ka maseerana aan si degan ugu soo bandhigi karo anigoo aan xanaaq iyo midna iga muuqan hadalkeeda iyo waxa ay dhahdana aan ku kalsoonahay taasi waxay keeni kartaa inaan isu soo dhowaano maalinba maalinta ka dambaysa in annaga iyo ubadkeegu aan farxad ku noolaano in nolosheeda inta ka dhiman aanu ka fogaano ama aanan arag waxna kala fogeeya sidaa darteed iska ilaali inaad mar kasta ku mashquulsho qofkan wuxuu qabanayo iyo wuxuu aadayo iyo waxa uu doonayo sababtoo waxaaba laga yaabaa wax adiga khayr kugu jiro inuu ku maqan yahay tusaale ahaan ninkaagu haddii uu subaxdii baxo isagoo aan kuu sheegin meeshuu aadayo ama aad ogtahay inuu shaqo aadayo oo uu ka soo habsaamo wakhtigii uu guriga imanaya waxaa laga yaabaa inuu ku soo habsaamay inuu adiga hadiyado iyo waxyaabo la mida uu dhexda kaaga soo qaado inuu ku soo habsaamay lacagtii biilka oo maanta ku yaray inuu meel kale wax uga raadsado ama shaqo uga raadsado ama wax la mida uu ka doonto sidaa daraaddeed ha ku degdegin su'aalaha noocan ah iyo inaad ogaato wax kasta boqolaalka su'aalaha ah ee maalin kasta isweydiiyaan lamaanuhu waxa ay ku keeni kartaa inay isdhibsadaan maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in aanu ku odhan karin su'aalahan badan iga daa sidaa darteed uu qalbiga kaa dhibsado haddii ay taasi dhacdana waxa ay imaanaysaa in qofkan isbeddel ku yimaado noloshiisa haddii uu isbeddel yimaadana waxaa yaraanaya xiriirka dhexdiinna ah maxaa yeelay waxaa yaraanaya xiriirka dhexdiinna yaalay haddii uu xiriirku yaraadana waxaa macquula inaad kala fogaataan mustaqbalkiinuna uu intaa ku ekaado boqolaalka su'aalood ee aad maalin kasta lamaanahaaga kula soo ordaysid marka uu guriga soo galo isagoo laga yaabo inuu daalan yahay isagoo laga yaabo xataa shirka haddii aanu ka daalanayn inuu maskaxda ka daalan yahay waxay idin keeni kartaa inuu qofkan ku dhibsado xataa hadduu ku jecel yahay uu kaa qariyo oo aan kugu odhan karin waan ku dhibsaday su'aalahaagana iga daa waxaa keeni kartaa inuu qalbiga kaa dhibsado haddii uu qalbiga kaa dhibsadana waxaa imaan karta in noloshiisa uu isbeddel ku yimaado oo sidii aad ku baratay si ka duwan ay timaado haddii ay taasi timaadana waxaa imaan kara in labadii lamaane ay kala fogaadaan haddii ay labadii lamaane kala fogaadaanna waxaa burburaya mustaqbalkiinnii waxaa burburaya mustaqbalka ubadkiinnii waxaa burburaya riyooyinkii aad lahaydeen oo ahaa inaad wada noolaataan inta cimrigiinna ka dhiman 20 sano 30 sano 40 sano 50 sano iyo 100 sano inta uu ilaahay adduunyadan uu idiin daayo taas ayaana curyaaminaysaa inaad wada noolaataan oo waxay keenaysaa inaad kala fogaadataan sidaa daraaddeed wakhtiga aad ku bixinayso inaad su'aalahan qofkan weydiiso ama noloshiisa aad ogaato waxaa muhiima inaad ku bixiso inaad qalbigiisa soo jiidato inaad qalbigiisa hantido inaad noloshiisa gacanta ku dhigto inaad noqoto qof aad isaga leedahay wax kastana aad u soo bandhigan karto isaguna uu hadal la'aan wax kasta kugu soo bandhigayo ugu lamaanahaagu inta uu ku jecel yahay ayay sirtiisa kuu soo bandhigi karaa laakiin haddii aad ka badbadiso su'aalaha
noloshiisa ku saabsan oo ay ka mid tahay maxaad doontay, maxaad qabatay, maxaad raadisay, maxaad waxaa u samaysay, maxaad sidaa u yeeshay, waxay keeni kartaa inuu adiga kaa boqo. haddii uu kaa boqon waxaa imaanaysa inuu sirihiisa gaarka uu kaa qarsado. haddii uu sirihiisa gaarka kaa qarsadana laba qof oo shisheeye ah waxba ma dhaantaan. waxaan kugula talinayaa walaalaha Soomaaliyeed ama lamaanaha Soomaaliyeed ee ku wareersan isbeddelka ku yimaada midkood inay keeni karto qodobkan oo ah qodob muhiim ah. adigu dib isugu noqo, waxaad isweydiisaa lamaanahaaga miyaad ku kaantarooshaa waxa uu qabanayo iyo waxa uu doonayo iyo waxa uu yeelayo, mise kalsoonida aad ku qabto ayaa 100% ah. way imaan kartaa inaad ka masayrto, way imaan kartaa inaad ka hinaasto, way imaan kartaa inaad tuhunto oo aad ku tuhunto in waxyaabaha qaar uu samaynayo oo xumaan ah, laakiin wuu kaa jaahil bixin karaa. waad weydiin kartaa adiga oo degan, qabow, naxariis iyo jacayl kaa muuqdo, kalsooni fara badan ay kaa muuqato ayaad weydiin kartaa. waxa uu ku yiraahdana waad ku qanci kartaa. haddii aadan ku qancinna adigoo aan xanaaqin ayaad odhan kartaa xabiibi weli kama jaahil bixin waxan. nolosha dhabta ah ee rasmiga ah waa isu tanaasul ayay ku dhisan tahay. tanaasulkuna waa wax aad iyo aad u qiimo badan. inaad waxyaabaha qaar oo yaryar oo noloshiina burburin kara aad ka tanaasusho waxay keeni kartaa inaad mustaqbal fog iyo waayo aragnimo dheer aad ku yeelataan. waxaan kugula talinayaa muuqaalkaygana rabaa inaan ku soo gebagabeeyo, haddii allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo, ka ilaali lamaanahaaga waxyaabahan aanu soo sheegnay oo dhan. ku dadaal inta aad noloshiisa raadinaysid wuxuu u qabanayay inaad raadiso, inaad qalbigiisa kasbato, inaad wax wanaagsan u samayso, inaad marka uu shaqada ka yimaado cunto wanaagsan u diyaariso, inaad ka farxiso, inaad ka qosliso, inaad la sheekaysato, inaad isaga waqti ku bixiso, inaad xataa haddii aad gabar tahay aadan u ogolaan ninkaagu inuu gabar kala fiiriyo. laakiin haddii uu adiga gurigii kugu dhibsado ama uu kugu dhibsado su'aalihii qaar oo nolosha ahaa, waxaa imaan karta inuu bannaanka ka helo gabar kale oo kaa raalisan adiga. Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa cuni waaye waa loo cunaa, haysan waayena waa loo hayaa. intaas ayaan rabaa inaan kugu soo gebagabeeyo muuqaalkayga. barnaamijkana wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah oo bishiiba 2 mar aan idiin soo gudbino haddii allaha awoodda leh raalli ka noqdo. sidaa daraaddeed waxaan idin leenahay nala socda wax badanna insha allahu waa rajeynaya inaad naga faa'iidi doontaan. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.